waxay ugu jeclayd meel ay degto iyo meel ay ka hadasho iyo meel ay qiimayso buuhoodle iyo waxay ugu jeclayd muqdisho ilaahay naxariistii janno saada cali warsamaha ka waraabiyo ha ka soo hadleen oo ha kii basaasay iyo kii xabadda ku dhuftay iyo kii lacagta ku bixiyey iyo kii meeshay joogto soo sheegay waanu saamaxaynaa ilmo cali warsame haddaan nahay wallaahi waa saamaxaynaa hadday soo hadlaan oo yidhaahaan annaga ama lacagtaa kaga dambaynay ama dilkaa kaga dambaynay ama haddii lay kuu sama ogol yahay basaasnimadaa kaga dambaynay waanu saamaxaynaa annagu ilaahay naxariistii janno saada cali warsamaha ka waraabiyo waxaanay walaalkeed hoos baan uga yaraa wax yar baan ka yaraa adhigaanu wada raaci jiray geelaanu wada raaci jiray reerka labadayada ahaynay sida mujuro anigu kuray baan ahaa markaa hoos uga yar sidii ay noola joogtay ee aanu adhiga u wada raaci jiray waxay ahayd gabadh bulshaawiyada dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba iyadaa u gudbadan jirtay iyadaa wax u sheegi jirtay iyaday ku daba fayli jireen sidaa u ahayd aabbahay wuu joogaa ee maalintii subaxii dambe maruu naga dhaqaajisay waanu weyne waa la raadiyey waxaanu kaga war helnay adigu inay yani ku biirtay fanka iyo suugaanta waxay la tahay qaybaha ay ka soo qaadatay ee wadaninimo kaga soo qaadatay ee yani mas'uulnimadeeda kaga soo qaadatay waa la wada fahansan yahay sidaa daraaddeed maalintii ay dhimatay intaanay dhiman saacaddii ay dhimatay ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye saacad ka hor bay waxay la hadashay gabadh aan dhalay iyo qof dumar ah oo dhashay inan iyo hooyadeed oo xaaskaygiya iyo inanaan dhalay xamar bay kala hadashay si degdega markaa maraykan bay ka timi sida igu maqaalo ah waa looga yeedhay maraykan mishinkana loogaga yeedhay markii ay timi markay la soo hadashay ayay waxay tidhi degd anaa idinla soo hadlaya idinku ha tegina anaa idinla soo hadlaya caawa bay tidhi saacad ka bacdigeed ayaa waxaa xigtay la dil labadiiba koomay galeen aniga waxaa ii xigtay waxaan u malaynayaa 88 bay ahayd markii aan xamar kaga imi anigu xasan cali warsame oo xabadi ku dhacday dagaaladii sokeeye aabbahay wuu joogaa ayaa 3 habeen iyo 3 maalmood buu meel cidla ayaali dagaalkii sokeeye halkan ka dhacay inagiyo dariskeena markaasaa ciidankii ku baxay baa soo helay isagoo nool anigu waan la socda waan soo qaadnay aabbahay baan u keenay ha joojin buu yidhi u gudbi xamar saade u gee sidan u sii waday baan gurigeedii dhiga cusbitaal martiini bay dhigta xabaddii lowgaa kaga jirtay waxaa ku qalay cismaan tuur nin la yidhaaho kornel cismaan tuur oo cusbitaal martiini haysan jiray oo ku qali jiray dadka xabaddii yuu ku guulaysan waayey ifisada ahayd ee lowgiisa ku jirtay markii uu ku guulaysan waayey bay waxay u qalqaalisay dibadda markay dibadda u qalqaalisay ayaa oo 7 casho uga harsantay falaygii baa aabbahay yimi aabbahay markaa uu indhabeelay indhuhu ka yimoobay aad uma indhala'ayn saadu u yimi sayti aabba xasan baad falayga ku qoran oo xabaddii baad ku jirta xabadduna markaa way ka soo dhacdo wixii nimcadii uu cunayay bay kaga soo baxdo afkayba soo taagto waabanu ka soo qabanayba meeshiiba waa bogsatay siyo aabba duciya habaar kala dooro saado waan joogaa anigu sayti aabba ducaan doortay siyo anaa indhihii layga hayay xasan waaladan yahay aniga ay qaadaabo waxay dhigtay Moscow dalka Ruushka magaalo madaxda Ruushka ay dhigtay maaliyad badan baa ku baxday indhihii ilaahay kuma guulayno biyaa la yiro kaarakoome
ayaa waxa weeye indhaha waayiradii dambe baktiyay dabeetana qoladii dhakhtarka waxay tiri markaad isa soo baanato ee isku soo baanato wadankiini dib u noqo markaa nagu soo noqo qulquladii xamar baa dhacday markaa waxay ugu jeclayd meelay degto iyo meelay ka hadasho iyo meelay qiimayso buu hoodle iyo waxay ugu jeclayd muqdisho ayde yani qayb ka markii horena fanaanadaasay ahayd qiimaha weyn ku leh wadanka markii dambana xildhibaan bay noqotay xildhibaan waxay noqotay xildhibaan Soomaaliyeed ama ummadeed bay noqotay sida daraadeed gacan ka xaqdaran baa dishay ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo iyada iyo wixii islaamay dhintayba waxaanu aad iyo aad u qiimeynaa oo aanu waxa weeye aan u soo dhaweynayna xafladda dadkii soo abaabulay ilaahay ka ajriyo dimi dhaafsiyo duca ballaaran bay halkan ka kasbatay taariikh ballaaran oo wanaagsan bay halkan ka kasbatay ilaahay ka ajriyo dimi dhaafsiyo waxaan ku soo gabagabeynayaa in yaroo nasteexa u ah wixii dilay anagu haddaan ilmo cali warsamin lahay wixii dilay waanu saamaxaynaa waa ballan hadduu imika ay yimaadaan waa hadday maqlayaan aniga waa in waan saamaxaya oo ilmo cali warsame waa saamaxaya ha ka soo hadleen oo ha kii basaasay iyo kii xabadda ku dhuftay iyo kii lacagta ku bixiyey iyo kii meesha joogta soo sheegay waanu saamaxaynaa ilmo cali warsame haddaan nahay wallaahi waa saamaxaynaa hadday soo hadlaan oo yidhaahaan annaga ama lacagtaa kaga dambaynay ama dilkaa kaga dambaynay ama haddii lay kuu sama ogol yahay basaasnimadaa kaga dambaynay waanu saamaxaynaa annagu waxba ku falimayna dilkooda waayo haddaanu boqol u dilo noo soo noqon mayso haddaanu mid dilo noo soo noqon mayso waa nagu xaqdar waanu saamaxaynaa ha ka soo hadleen oo ha yidhaaheen war waxa annaga ka dambaynay waanu saamaxaynaa ha ka soo hadleen haddii kale toddoba awow yuu fidhsadaa waxa la yidhaaho dhiiggaasi waxa la naas dheer gurigaaga gashay ama timo dheer gurigaaga gashay habaar ma dhaafo waxa weeye waarisa soo sheego waanu idin saamaxaynaa ka soo hadlay waxba yaa hadalku yaanan dheeraynin xafladan qiimaha leh ee la soo abaabulay waxaan ilaahay u weydiinayaa in ilaahay kuwii soo abaabulay ka ajriyo damba dhaafsiyo abwaanada walaasheen saada cali warsame ilaahay naxariistii jannaha siiyo ilaahay janno firdowsi ha geeyo maalin rabadaana oo ay sooman tahay baa la dilay marka qofka noocaas culimadu waa hore inoogu sheegeen waa ahlu janno ilaahay jannadiisa ha geeyo taariikhdeedu way ballaaran tahay runtii oo haddaynu imika bilowno waaga inooga beriya laakiin markaynu soo koobkoobno waxay qof halgama ah oo abwaana oo murti badan oo geesiyada oo aan dowladaha xitaa ka waaban dowladdii ugu dambaysay waxaalihii ay ka sheegtay halkanaa laga helayaa ee ay ku dhaliilaysay iyadu markaa ama cid ha u soo dhibto ama iyadu ha alifto saada markii u dambaysay abaalgud baan u siinay inay xildhibaan Soomaaliyeed noqoto si ay golaha ummadda looga talinayo ay murtideeda iyo suugaanteeda u gaarsiiso waanay ku jirtay hawsha iyadoo hawshii ku jirtay geeridu ku timid gacanka xaq daran baa dishay waa ahlu janno